wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland Cabdiqani Caateeye Fariid oo Ariel TV la hadlay ayaa ka hadlay xaaladda bariga gobolka Sanaag taasoo muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladaasi ay jireen saraakiil ciidamada ka tirsan Somaliland oo ka goostay iyo sidoo kale barasaabkii baran oo isaguna iscasilay iyo guud ahaan xaaladaha ka jira deegaankaasi ayuu ka warbixiyay wasiirku tan saraakiisha waxaan dhici jirtay inay dhacaan niman saraakiil oo iska baxa oo iyagoo darajadii iyo karamkii Somaliland sita ay u adeegaan dadyo kale oo cadow waxa weeyaan waxaan ku xukumi doonaa maxkamadaha ciidamada kala duwan khaasan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada gobolada bari ayaan kiiskooda iyo gartoodaba geyn doonaa wixii lagu xukumo ayaa hadhow talo mustaqbalkooda dama lagu la dhaqo wasiir arrintani arrin fudud maaha saraakiil ciidan oo ciidankii kamid ah ayaa goostay oo sheegay barasaabkii gobolka isaguna kamid ah mas'uuliyiintii gobolku iyaguna way goosteen waxyaabaha ugu badan ee u sababeeyeen goosashadaasina waxay sheegeen in cudud ciidan oo Somaliland la duldhigay taasoo ay leeyihiin in waxa weeraraya baran ama iyo deegaanada hoos yimaada in arrintaasi sida ay wax u sheegeen maxaa ka bedelan to wala weeraraya wax la yiraahdo ma jirto in iyaga mas'uuliyadii barasaabka dad sheegtay mas'uuliyadii ninkii la saaray waxa qof shaqadiisii garan waayay uu eegyahay kuwa ciidamaduna kuwa ciidan ahaan ku sugnaa meeshaas ahaayeen oo gacan bidixays iyo gacan kala gashay waa niman qaran dumisa waa nin kula maxkamad baa la tiigsanayna ciidamada Somaliland aan soo noqono hadii maanta loo diro goob kamida goobaha kale Somaliland meel ka xaraana oo Somaliland ku taala ma jirto meel walba waxay u tagayaan shaqadooda ay ka gudanayaan amba nabadgelyaha sugaan amba talis ku samaystaano waxa weeyaan shaqadooda umay qabsanayaan wasiir arrintan ciidamada goostay tan iyo intii xukuumadda mudane Muuse Biixi Cabdi ay timid way soo noqonayeen caarayna ogeyn in qaar kale imika saraakiil kale aynu ognahay in xagee wax ka qaldayn waxa weeyaan ay la duubsan karo dadkan waa dad la duubsaday oo u adeegaya dadyow u cadawga Somaliland cadawga Somaliland waa taqaanaano waxa weeyaan waa dalka Soomaaliya la yiraahdo oo markii uu itaal kala yeelan waayay horumarkii ummadda Somaliland u diidaya madax banaanidoodii u diidaya inay caalamka dalka adarkii sidee dawlad caalamka kala imanayaan u diidaya horumarkooda marka waxa iyaga laftigooda soo jeedinaynaa wartiina ku noqda oo waxa weeyaan tiina ku mashquula oo tan idii taalo ummadda aad madaxda u tiin ku mashquula waxa weeyaan tan waa loo dashaday waxa weeyaan la horumariyay marka soo jeedintaas aan siinayna markaas in saad wasiir in wadooyinkii ugu dambeeyay in Puntland dhaqdhaqaaqyo xoog leh ay ka watay deegaanada bariga gobolka Sanaag in ka xukuumad ahaan talaabada aad qaadaysaan iyadoo saraakiishii Somaliland ka goostana ay qaarkood in darajooyin ku dalacsiyeen maxay tahay talaabada qaadaysan marka ay si balaariyeen xukuumaddii Somaliland iyo shacabkeedii Sanaag bari ayaa la yiraahdaa hal carqaladeeyo hal dhibaateeyo mid aanu ka yeelina maaha wala la ogyahay dowladda Soomaaliya iyo Somaliland awalba waxay kala qaadi jireen Axmed Khalid Farax telefishinka Ariel Hargeysa.